السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود meel kasoo joogtaan kusoo dhawaada janaalkayga Bashir Maxamed Maxamed Bardari barnaamijka xogaha iyo xaqaaqa isboortiga waxaan ku eegaynaa 5 ciyaaryahan oo kubadda cagta kuwaas oo aan weligood qaadan kaarka rooshaha waxaa booska koowaad ku jira Damian Diouf waa ciyaaryahankii hore ee kooxaha Blackburn Chelsea Newcastle iyo kooxda Fulham weligiisa ma uusan qaadan xirfadiisa kaar cas inkastoo uu xirfadiisa kubadda cagta kusoo qaatay Premier League waxa uu ahaa mid cajiib ah kaas oo kusoo qaatay waayo qurux badan 18 sano horyaalka waxa uu ahaa ciyaaryahan aad loogu tixgeliyo bandhigiisa cajiibka ah rikoorkiisa anshaxa wanaagana waa mid aad u sarreeya ciyaaryahan la mid ma jiro jiilkiisa waxaana uu ahaa ciyaaryahan aad u anshax fiican markii loo eego waxa uu ahaa mid xakameeya dareenkiisa islamarkaana si cajiib ah ciyaarihiisa ku guta Diouf inta badan waxaa loo arkaa in uu ahaa shakhsi adag islamarkaana ka walwala in uu kaar qaato qofna kuma dhaco in uu ku eedeeyo haddii uu ku soo daro laakiin Diouf marnaba lama iloobi karo sida uu ahaa ciyaaryahan anshax leh islamarkaana shaqo adag qabta waxaana ciyaartooyda haatan jira ay yihiin kuwo si sahlan ku qaata kaarka cas laakiin anshaxa waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee kubadda cagta sida aadka ah la isaga qadariyo Damian Dioufna booska koowaad ayuu ku jiraa 5 ciyaaryahan oo aan weligood kaar roose ah qaadan ciyaaryahanka labaad waa Raul ma jiraan weeraryahanno lala barbar dhigi karo dunida kubadda cagta halyeygi weynaa ee Raul Gonzalez Blanc waana kabtankii hore ee dhiiga kooxda kubadda cagta ee Los Blancos-ka Raul waa mid qaab ciyaareed cajiib ah kusoo qaata kooxdiisa isagoo sidoo kale lagu ammaani karo inuusan weligiis kaar roose ah qaadan anshixiisa kubadda cagtana waa mid sarreeya waxa uu ahaa mid xakameeya dareenkiisa islamarkaana ha farsamaysan kubadda cagta kulamadiisa ku qaadan jiray Raul ayaa kasoo muuqday tartamo kala duwan oo kubadda cagta waxaana uu ahaa ciyaaryahan ku dheela dareen islamarkaana kulamada waaweyn ee cadaadiska wata si sahlan kaga baxsan jiray inuusan kaar roose ah qaadan weligiisa ciyaar lagama saarin xidiga lagu magacaabo Raul Gonzalez bal kasoo muuqda kulanka ugu dagaalka iyo sidoo kale xamaasada weyn ee kubadda cagta El Clasico waxa uu sidoo kale kasoo muuqday finaalo Champions League iyo sidoo kale tartamo waaweyn weligiisna ma uusan lumin dareenkiisa iyo anshixiisa kubadda cagta mana ahan ciyaaryahan loo diiwaangeliyey inuu qaatay kaar roose ah islamarkaana uu ka mid yahay ciyaartooyda anshaxooda kubadda cagta u liito waxa uu yahay ciyaaryahanka labaad ee ugu safashada badan ee La Liga isagoo saftay 550 kulan kooxdiisa kubadda cagta Real Madrid rikoor cajiib ah ayuuna kooxda u sameeyey waana halyeey kale weyn oo lagu xasuusto dareenkiisa iyo sidoo kale anshixiisa kubadda cagta inay tahay mid meeqaam sare leh islamarkaana qaab xushmadaysan kubadda cagta ku dheeli jiray isaga ayaana booska labaad ku jira saddexaad waxaa soo galay 5 ciyaartooy ee aan weligood kaar roose ah qaadan xirfadooda kubadda cagta halyeeygi weynaa ee kooxda kubadda cagta Manchester United Ryan Giggs waa mid ka mid ah halyeyada kooxda kubadda cagta Red Devils-ka isagoo ahaa mid cajiib ah xidiga lagu magacaabo Ryan Giggs waxa uu ahaa mid meelo badan kooxda ka caawin jiray sidoo kale isagu waxa uu caan ku ahaa markii muranku dhaco islamarkaana ciyaartooyda albiitaraha ay soo hareereeyaan islamarkaana kusoo xumaan mid isagu dib isaga laabta mana ahayn mid la dagaalama albiitaraha islamarkaana ku qayliya isagoo ahaa mid xakameeya dareenkiisa sidoo kale waxa uu ahaa mid kaloo cajiib ah oo ku caan baxay khiyaanooyinka u gaarka isagu ee kubadda cagta jilaafooyin iyo sidoo kale inuu mar walba ahaa ciyaaryahan iska ilaaliya in uu kaar roose qaato 90 daqiiqo ma dareemi jirin in ay dhammaatay mana samayn jirin jiha wareer ku aadan inuu ku qaato kaar roose mar walbana waxa uu mid mar walba iska ilaaliya wax walba ku riixi karay inuu kaar roose uu qaato isbuuc walba isbuuca ku xigay qiyaas 672 kulan ayuu xidigan satay waxaana uu kusoo qarashgareeyay kooxdiisa 24 sano waana halyeyga nool ee kooxda kubadda cagta Red Devils-ka isaga oo ay soo marayeen kulamo adag iyo sidoo kale marxalado dareen sare wata kuwaas oo mararka qaarkood ciyaartooyda ku riixa inay caroodaan kaar roosena si fudud ay ku qaataan laakiin isagu waxa uu ahaa mid arrintaas iska ilaaliya islamarkaana is xakameeya anshixiisana wanaajiya inta ciyaarta kubadda cagta ay socoto 90 daqiiqana waxa uu ahaa mid aan dhibsan jirin islamarkaana aan dareemi jirin waqtiga loogu talagalay waxa uu mid guulo badan la soo qaatay kooxda isaga oo mar walba iska ilaalin jiray in si fudud uu ku qaato kaar roose islamarkaana
markaana uu hoos u dhigo sumcadiisa kubadda cagta Carlosna loo diiwaan geliyo 24 sano ee uu kooxda ku soo qabtay waxa mid si joogto ah ula kulmi jiray culayska tartamada waaweyn iyo sidoo kale markii uu ku qaybgalayo World Cup-ka waxa ay wataan loolan iyo sidoo kale marxalada adag kuwaas oo mararka qaarkood kugu riixi kara in aad qaadato Carlos laakiin Ryan Giggs waxa uu ahaa mid si uujigan arrintaasi kaga baaqsan jiray isla markaana u dulqaadan jiray cadaadisyada kulamada waaweyn isagoona guulo waaweyn ku soo gaaray waxaana uu ka mid yahay ciyaartooyda weligood aan sumcadooda kubadda cagta qaadan Carlos aadka loogu ammaanayo inay ahaayeen ciyaartooy anshax leh si xushmad leh kubadda cagta ku soo qaatay waayahoodii afraad waxaa ku jira 5 ciyaartooy aan weligood Carlos qaadan Philip Lahm tankii hore kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa uu ahaa daafac adag si adag u dagaalama guulo waaweyn ayuu soo gaaray isagoona waayo qurux badan ku soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa uu ahaa mid weeraryahanada isla markaana taageera qaybaha kala duwan ee garoonka ciyaartooyda saaxiibadiisa kala ciyaaraysa waxa uu ahaa orod badan isla markaana xawaarihiisa ku jira masaafo badan oo ka tirsan garoonka Lahm ayaana ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray weligiisana ma uusan qaadan Carlos waxaana uu yahay mid lagu ammaani karo in sumcadiisa uusan weligiis ku garaafeen inuu qaato Carlos sheekada xidigan waa mid aan la aamini karin si adag ayuu u soo shaqeeyay lamana rumaysan karo xidigan daafaca ka mid ah kuwii jiilkiisii ugu fiicnaa ee ebed kubadda cagta in xidig daafaca uusan qaadan Carlos waa wax kaloo cajiib ah 10 sano ayuu ku soo qaraj gareeyay kooxda weligiisana Carlos ma uusan qaadan rikoor cajiib ah ayuuna haystaa waxa uu ahaa mid saameyn leh isla markaana garoonka ku xoogan shaqo weyn ka qabta qaybaha kala duwanna caawiya xawaarana ku jira masaafada kala duwan ee garoonka weligiisana ma uusan qaadan Carlos kabtankii dhiigga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Philip Lahm ciyaaryahanka ugu dambeeya 5 ciyaartooy aan weligood kubadda cagta Carlos qaadan waa xidiga lagu magacaabo Gary Lineker waa falanqeeye kubadda cagta xilligan aynu joogno waa goolalayaha ugu sarreeya ee England u dhashay waxaana uu ku jiraa booska labaad waxa uu ahaa mid cajiib ah isla markaana goolasha si daran degdegyo cajiib ah ayuuna ka samayn jiray marka uu ka soo muuqanayo tartamada waaweyn sida World Cup-ka waxaa sidoo kale lagu yaqaanay ciyaaryahan si cajiib ah kaga soo muuqda kooxdiisa iyo sidoo kale xulkiisa weligiisa kuma uusan waxyeeleenin inuu qaato kaar jalla ah iyo sidoo kale roose waana sheeko cajiib ah in ciyaaryahan kubadda cagta Carlos ama jaallo uusan qaadan xilli ciyaartooyda haatan jooga si fudud ku qaataan isla markaana ay ka dhigtaan dabeecad u gooni ah xaqiiqadu ayaase ah inuu ahaa mid ka mid ah kuwa aadka lagu kaftamo anshixiisa kubadda cagta iyo sidoo kale shaqada adag ee garoonka uu ka qabto waxa uu ahaa mid cajiib ah xidigan qaab ciyaarkiisa cajiibka ah waxaana uu u soo ciyaaray kooxo waaweyn oo ay ka mid tahay Barcelona, Everton, Leicester iyo Tottenham Hotspur waayihiisa kubadda cagta weligiisna kuma uusan dhicin inuu sumcadiisa iyo sidoo kale xirfadiisa kubadda cagta uu ku dilo inuu qaato Carlos ama jalla ciyaartooydii horena waa ka guuray waana uu ka meeqaam sareeyaa maadaama Carlos iyo jalla uusan midoodna uusan qaadan si fudud ayaana loo dhigi karaa waa mid ka mid ah kuwa ugu fiicnaa ee kubadda cagta Lineker waxa uu ahaa mid ku dagaalama physicalka waayihiisa waxaana uu ahaa mid ciyaartooyda aad ula dagaalama waxa uu ahaa mid xakameeya kubadda isla markaana dulqaad badan leh 466 ciyaar ayuu ciyaaray weligiisna ma uusan qaadan Carlos ama jalla xidiga ugu fiican uguna sareeya 5 ciyaartooy warbixintaas waxay ahayd 5 ciyaartooy aan weligood qaadan Carlos waana ciyaartooy aad kaga gedisan kuwa haatan jooga oo qorqoraya kaarka rosa iyo jallada isla markaana si macna daraa ku qaata laakiin ciyaartooydii hore waxa ay yihiin kuwa tusaale u ah ciyaartooyda haatan jooga anshaxa ayaana ah mid ka mid ah waxyaabaha la isku qadariyay isla markaana aadka ay taageerayaashu u jecel yihiin intaas ayaan kusoo gudbinaya barnaamijka xogaha ee xaqada sportiga tan iyo kulan dambe dhammaanteen isku duubasada siinay